الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. odayaasha dhaqanka, culumadiinka, haweenka, dhalinyarada, aqoon-yahanada, ganacsatada magaalada Dhobley, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kulankeena qaybaha kala duwan ee maanta. Dhobley maanta igu horeysa aniga waa markii shanaad ama lixaad ayaan filayaa waan imaado intaan xildhibaanka ah. Dhobley waa magaalo istiraatiiji ah ku taala xadkii Kenya Soomaaliya, aad u weynaatay, horumar badan ka muuqdo. afarta sano hadda xildhibaankaan ahaa aniga xildhibaan guud ee Jubbaland oo 51 ah ayaan ka tirsanahay. 8 sanatar iyo 43 xildhibaan baan nahay. beel ahaan marka la dhaho beelaheennana beesha aniga aan ka soo jeedana 12 xildhibaan bay ku leedahay. baarlamaanka guud ee Soomaaliya 14 xildhibaan baan ku leenahay. gaar ahaan aniga waxaan sii matalaa Jubbada Hoose laga soo bilaabo Diif ilaa Kismaayo. xildhibaano kale oo saaxiibada ay la matalaan oo gabdhiyo wiilal ah way jiraan. markii nala doortay xamar nala diray tawaatiis beddelku dhacay 6 bilood iyadoo dawladdii ay jirto ayuu dagaalkii qarxay. khilaafkii u horeeyay annaga dawladda naga dhex bilowday wuxuu ahaa keeskii qalbi dhagax iyo dhiibistii qalbi dhagax la dhiibay iyo online argagixisay markii la dhahay ayaa dadka u nasab sheegtay Jubbaland ama Soomaalida kale ay ka dhidhiyeen. hormuud waxaan ka ahaa in keeskaas annaga aan aqbalin, kees siyaasadeedna uu ahaa. waan ku guuleysanay in baarlamaanka Soomaaliya aan marsiino 156 xildhibaan in online ay argagixisay ahayn qalbi dhagaxna muwaadin Soomaaliyeed u ahaa. xilli adag bay ahayd, xilli geeska Afrika TPLF ka talinaysa ahayd, xilli dadka bareeri kara ay yar yihiin bay ahayd. laakiinse annagu waan u bareernay meesha u horeeyay khilaafkii iyo madaxweynaha markaas waddanida lagu doortay anti Ethiopia ayaa asaga Ethiopiaanka noo daba marayba. marka tiba waxay keentay arrimo siyaasadeed iyo dadka annaga in lagu baabiyo oo la dhaho magacaasi guud haddii la sheego de sheekheeda iyo shariifkeeda culimada lama kala yaqaano. ISIS iyo Al-Qaacida qofka lagu shaambadeeyana dhiiggiisa hantiisa la banaysanaya. marka taas ayaa keentay inaan ka dhiidhino waxyaabahana loo doortayna ka mid ahayd inkastoo aan koobnayn. sababtoo ah xildhibaanku shaqadiisu waa 3 shay. golaha shacabka ah waa matalaad, waa sharci dejin oo macnaha shuruucdu ayuu dejiyaa, waana la xisaabtan xukuumaddu la xisaabtamay ama dawladda. marka matalaadii ayay ka mid ahayd. intaas marka laga soo tago wixii kale bilowday waxay ahayd wixii nationalka ah federaalka ee taagnaa reetaankii Jawaari waan difaacnay. kadibna khilaafkii dowlad goboleedka dowladda federaalka ayaa cirkiis ku shareeray. targetna waxa ahaa kuwa kale dhan waa la mariyay laakiin targetka Jubbaland buu ahaa. madaxweynaha hadda madaxweynakiisu dhamaaday dhowr jeer aan la fariistay aniga xildhibaano kale. mar walba wuxuu dhahayay Jubbaland waa inuu isbeddel ka dhaca, waa inay aqbashaan. isbeddelkaas ee Jubbaland laga rabay wuxuu ahaa isbeddel quracan oo dana siyaasadoo gaar ah ay leedahay. anagana waxaan dhahnay haddii isbeddel Jubbaland ka dhacdo Jubbaland bay u taalaa, filla Soomaaliya Jubbaland isbeddel kama samayn karto. kadib wixii dhacay waa ogtihiin dowladda shisheeye in la soo isticmaalay, ciidamo Ethiopian la soo isticmaalay, in cunaqabateyn la saaray Jubbaland waa la socotaan, in diyaaradaha cirka iyo dhulka badda laga xirtay waa la socotaan. mooshinkii ugu horeeyay ee Dhobley diyaaradda Dhobley ka baxaysa inaad ka daawateen baarlamaankana waa laga yaabaa anigoo ka hadlaya. markii la yidhi diyaaradda Dhobley ka baxaysa xamar bay maraysaa waxaan geynay aniga xildhibaanaha hogaaminaya aniga aan hormuud u ahay mooshin aan cunaqabateynta ku jibinayno baarlamaanka. wasiirka gaadiidka xilligaasi oo la isticmaalayay oo deegaan ka soo jeeda laftiisa oo gaadiidkii dowladda hawada ah oo aan kula taliyay inuu iska casilo xilka maadaama dadkiis loo cunaqabateynay wasaaradda gaadiidka dowladda hawada oo uu ka liidan wasiirkii kale asaga ka horeeyay howlaha guud
أو منصور رو ممكن لسوا أفضل ويسكعزي لحلكيسي أتفتح جيسي ودكيس ودان قضي أيا ذاك الاستعمال يسوي ساري كملها وأنا قوتنت موشي بانك جيني برلمانك مع العضبة تيفيزي كداوتان وأنا قوتنت ديار دي دوبلي كسبايا حمر لدهي اللي احنا $1 كل عيسين يصدق $100 كقاضي وأنا قوتنت عشوان جبيني برلمانك سومالي خصوصا ساني موشي كذا أنا سميت كريوجي markii dhobley duufaanada waxaan rabaa daadadka ay dhaceen lagu soo fatahmeen toogii ama lagta ay soo fatahantay oo maanta waxaan ka cawanaynaa abaar markaas biyo laga cawanayay iyadoo cunaqoobteen ayna saaran tahay ayaan waxaan keenay waan ka shaqeeyay waraaqo aan qoray maadaama deegaanka aan matalayay roobna daadadna ay qaadeen magaaladii iyo wasiirka gargaarka ee Soomaaliya aan keenay halkan oo beerta aan ku keenay oo diyaarad daawo intaan keenay shirka ka codsaday warqad qoro warqadaas oo ku codsanayo in dhammaan hay'adaha internationalka iyo localka ah dowladda iska soo xaadiriyaan access-kan loo fududeeyay dadka taas ayaana keentay in loo soo gurmado markaas wixii la qaban karay oo dhan ay maadeen dowladda xilligaasi xilli adag buu ahaa kadib dhowr jeer oo kale waan imaaday mar dhalinyarada aan sportis baliyada u keenay iyo xaaladda guud ee mar aan ciidamada iyo dhaqdhaqaaqyada aan ka howlgalaynay howlahaasi ayaan u soo gaaray hadda imaashahaygu muxuu daaran yahay 3 qodob ayuu daaran yahay kow maadaama xilli abaar lagu jiro tuulooyinka hoostaga dhobleyna abaar ay saameynayaan iyo degmada afmadowga afmadowna maamulku waa la xiriiray wixii wacyigelin hay'adaha localka international waa la xiriiray in loo gurmado wixii aanay shakhsiyan ugu aadanaana waan u diray inta kaasi biidhaamin loogu sameeyo dhoblin waxaan u soo gaaray barnaamij aan diyaarinayna aniga wasaaradda caafimaadka ka wada shaqaynaynay in badan hay'ad caalami ah nafiiqid maadaama deegaankan nafiiqid aad ugu baahan yahay 1800 oo qof in indhaha loo fiiqo qaarna ookiyaal la siiyo qaarna la daaweeyo qaarna hal in loo fiiqo qaarna labada dilay in loo fiiqo in isbitaalka weyn general hospital aan furno aniga wasiirka caafimaadka iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka waan ku guuleysanay waa la furay ilaa ay hadda 200 ku dhawaad baa indhaha loo fiiqay wayna socotaa waxaan ka codsanay dadka in loogu daro 2 isbuuc oo kale wacyigelinta in la kordhiyo lagana faa'iideysto in fiiqidaasi dadka badan waa la daaweeyay 200 oo kale weeyaan waa la daaweeyay ilaa ay 200 oo kiyaala hadda waa la siiyay marka arintaasi inaan iyadana xoojino maadaama dadkeena dad xoolo dhaqatay u badan yihiin inay nafiiqadaasi si fiican uga faa'iideystaan oo fursad fiican oo qaalina ah marka wadamada kale indhaha lagu fiiqado qodobka labaad wuxuu ahaa abaaraha meeshan laba qodob ee wax loo qaban qodob waxa weeye wacyigelin iyo inaan la hadlo dhammaan hay'adihii wasaaradda dowlad goboleedyada agaasimaashooda guud dowlay aan la keenay iyo hay'adaha caalamigaba assessment way sameeyeen way laabteen 3 bari ka hor dadku waxay u baahan yihiin in hay'adaha biidhaamin ay sameeyaan baahiyaha jirna oo la hadalno maadaama xildhibaanka deegaanka aan ahay in codkeyga aan ku biiriyo in hay'adahaasi si degdeg ah loo gurmado dadka deegaanka ah dadka baahida qaba ee baadiyaha joogana la gaarsiiyo biidhaamiska shakhsiyan guddiga aniga meeshan ka jirta arrimaha gurmadka waan la kulmay wixii baahiya jiray tuulooyinka ugu darana way ii sheegeen wixii shakhsiyan aan ugu talagaleen iyagaan ku wareejiyey si u gaarsiiyaan dadkaasi tuulooyinka baadiyaheeda jooga biidhaamin loogu sameeyo qodobka saddexaad waxaa waaye qodobka magaalada maxay u baahan tahay qaybaha kala duwan ee bulshada la kulmay waxaan la kulmay ganacsatada magaalada waxay u baahan tahay 3 arrimood mid waa isku tashi idinka ayaa bilaabay isku tashigaas inaan dhiirigeliyo oo ah in magaalada waddo laami ay yeelato waddaas laamiga ah oo magaalada yeelanayso waan la fariistay guddigii waxyaabaha talooyinka ay u baahnaayeenna waan siiyey wixii shakhsiyan iga aadanaana oo aniga xildhibaan ahaan aan kaga qayb qaata aan ugu wareejiyay iyadana oo san ugu dhiirigeliyo as xildhibaan ahaan inaan waddada ka qayb qaato magaalada waxay u baahan tahay kale magaalada waxay u baahan tahay dabdamis ma laha oo yaraan 3 dabdamis u baahan tahay magaalada inay maato waxaa magaalada dabdamisyaasi
waxa ana isku tashanay waxa meel kale ka keenaba si uu dhaqsiyaha badan waa in la helo hadda diif shalay waa maqasheen inay yara dab uu ka kacay dabdabis ma lahayn marka magaaladan sidaan asaas dhibkaas ayaa iyadan in wax laga qabto u baahan degdeg ah qodobka kale ee magaaladan u baahan magaalooyinka u waaweyn ee Soomaaliya hadda maraysa caasimada magaalooyin ah way ka weyntahay hadda wayna fidaysaa dhismo qurux badan uu ka socdaa laakiin master plan ma laha magaalo aan master plan lahayn magaalo ma noqonayso way dumaysaa marka dambe dab hadduu kaco meel la maro ma laha wadooyinku way xirmayaan magaalada marka waxaa loo baahan yahay waxna waa isku tashi annaga ah waxna waxaa waaye wax dowladda laga rabo dowladda waxaa laga rabaa master plan inay sameyso Jubbaland wasiirka howlaha guud waan la hadlay gudoomiyaha guddiga hay'adda dhulkan waan la hadlay injineeradooda insha Allah usbuuc soo socda way soo gaarayaan magaaladana master plan baa loo sameynayaa master plan baa loo sameynayaa idinkana waxaa idinkaga baahan yahay ninka wadda ay ku soo hagaagto in master plan-ka ah inaad u hoggaansantaan sababtoo dowladda amarka hadda loo hoggaansan halkan buush baa igu dhisanaya ha iga jibin halkan waxaan ku sameeyay haga yeel lama baahno magaalada quruxdeeda ku xiran tahay anna quruxdeeda ku xiran tahay master plan marka marta ay soo baxdo ha loo hoggaansano garoonkaasna waxaa rabnaa si fiican buu shaqeynaa garoon busy ah diyaarad garoomada ugu busy buu ka mid yahay Soomaaliya hadda Dhobley diyaarad markaa ka soo raacaysa xamar meel ka raacid ma laha every day waxa la yaabaa laba diyaarad oo saddex diyaarad inay soo kacdo garoonka saas oo amrin waxaa loo baahan yahay in asagana laami laga dhigo laga wada shaqeeyo marka wax kaliya shacab kaliya qabsan karaan ma aha waxa eedaha caalamiga iyo wixii dowladda Jubbaland loo baahan yahay dowladda federaalka loo baahan yahay ayaa jira iyadana waa dabagaleynaa in kastoo xilli kale gud ugu jiro laakiin insha Allah garoonkaasi garoon laami inuu noqdo ayaan ka wada shaqeynaa jira karaan isbitaal aad u weyn leedihiin aadna u baaxad leh ku fadhiya laakiinse baahiyo badan wali ay ka maqan yihiin isku tashi marka hore lagu dhisay kadibna hay'adda sababtana gacanta ku hayso agaasimaha maamulka ee wasaaradda caafimaadka ay la jooga wasiirkana uu joogay wuxuu u baahan yahay isbitaalka dhan waa isla fiirinay insha Allah si MCH buu shaqeeyaa hadda waxaan rajaynaynaa General Hospital san afbado oo soo dhignay inuu asana General Hospital iyadana waa la meena si isbitaalka loola macaamilo hay'adaha gacanta ku haynaya inuu MCH ahaan uu yahay General Hospital uu yahay qalabkiisa dhan loo dhameystiro intaas waxaa dheer xagga waxbarashada aniga waxyaabaha waxbarashada bulshada qofka gacan waxba ka siin kartaa laakiin dadka waxa lagu deeqaa waxyaabaha waxtarka u ah marka gacan horumarkiina kaga shaqeynaynay in indhaha la fiiqo in wadooyin la helo in waxbarasho la helo in caafimaad la helaan ka shaqeynaynay dhinacna difaac ayaan ku jirno xamar baan ka difaacaynay insha Allah waxaan rajaynayaa oo codsigaygu uu yahay kursiga aan ku fadhiyo idinka iska leh shacabka iska leh reer Dhobley waa iska leh kamid ah dadka iska leh dhabarka u ah waxaan rabaa insha Allah mar labaad idinka codsanayaa inaad codsigayga oo ah waxaan u taaganayaa kursiga mar labaad inaan ku soo laabto insha Allah nin walba caafimaadkiisu qaadi doonaa inay ugu garab istaagtaan san adeegyada dhiman in kugu dhameystiro insha Allah si aan u adkeeyo jiritaanka Jubbaland si aan xuquuqdeena federaalka u raadiyo si aan u soo dhiso insha Allah aan hormuud ugu noqdo dowlad cusub oo federaal ah oo Jubbaland aan la dagaalamaynin oo horumarka xuquuqda Dhobley ee leedahay iyo Jubbaland ee leedahay guud ahaanba aan uga soo qaado duulaa karaan noqdo waad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh